حالا نول maanta xaaladayna arkaysaa yani isbedelka cimilada waa wax waqti dheer qaato 10 sano iyo waqti dheer qaato waxa arkaysaa wadankeena sidoo ahaan jiray yani roobabku isku xigi jireen cimilada sidii maanta ahayd haddana waa dareemi karnaa cimilada wadankeena soo aad u soo kulaanayo oo arkayna marka maanta waa la nool nahabo Soomaalida marna daad mar fatahaad mar abaaro mar dabeelo marka maanta waxa la nool nahay inaan ka sheekeyno mahalka bulshadeena waxa rajeyn doonaa insha Allah iyagana inay dadaal xoog badan gelin doonaan inay deegaanka badbaadiyaan marka laga hadlayo dhibaato weyn u geysanay laano deegaanka aan ku noolna anagu u baa dhibaateynay deegaankaas marka sida u horumarin lahayn oo aan ula qabsan lahayn isbedelka cimilada inaan ka wada shaqeynayno noqonaysa marka laga hadlo hadda inta badan isbedelka cimiladu wuxuu qaataa inta badan waqti badan uu qaataa waxaana keenay inta badan yani in temperature isbedelo heerkulka inuu isbedelo in xilliyada ay isbedelaan soo marka laga hadlo hadda Soomaaliya kala camal 20 sano oo soo dhaafay isbedelka cimilada aad loo dareemo oo waxaan aragnaa inta badan yani in yani xilli ka dambeeyay yani mararka qaar in roob la weynayo mararka qaar in roob badan uu da'ayo mararka qaar in abaaro la gelayo mararka qaar fatahaado in la gelayo isbedelka cimilada ma aha sida weatherka camal oo la dhahayo maanta waa 30 berri waa 7 berri waa 5 laakiin waxay ku imaanayaan si oo maxaan ku rahay briefs ah roobab badan da'ay roobab badan da'ayana sidii hore u di'i jireen uma da'ayaan marka hore hadduu ahaan jiray mililitarkii hashi dhibic roob haddii ahaan jirtay mid aad u yar hadda aad bay u badatay wax laga yaabaaba isla daqiiqada gudaheeda inuu biyo dhig badan u sameeyo magaaladii qabowga ahayd aan ku raaxaysan jirnay maanta arkaysa kuleelka hadda xilligan aan joogno oo wareyska qaadeen ayaan ka dareemeynaa maxaa lahaay isbedelka isku bedelay maxaa loo yaqaan xaaladii magaaladan sidii ahayd waxyaabaha kale oo aad bulshadeena saameeyay markaan laga soo tago waxa kamid ah daadadku oo la filanayo oo aad digniino badan ay soo baxayaan inay maanta aad arkaysay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ay soo saareysay in digniino badan ku aadan inuu dhici doonaan daadad badan ama fatahaado badan marka xasleyna bulshadeena bala nool oo waxa kale oo kamid ah abaarihii iyo maxaa la si ay bulshadeena u saameeyeen guud ahaan waa la nool maanta marka laga hadlayo waxa u baahanaa sida ula qabsan lahayn sida deegaankeena u badbaadinayeen inaan si wada jira aan ugu wada shaqeyno in ah in dhir badan magaaladan la beero bulshada lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay deegaan caafimaad qabo oo doorsan in lagu wada noolaado fatahaadii 2017 saameyn aad u daran ay dalka ka geysatay soo kal abaarihii ka dambeeyay ayagana waan aragnay dhibaatooyinka ay dalka u geysteen soo marka laga hadlo aniga hadaysan saameyn xitaa laakiin dadka Soomaaliyeed ay aad u saameysay abaarta ama fatahaada waana yani xaalad mar walba taagan waana sabab yani inta badan yani ay keento in isbedelka cimilada uu yani aad yani u sababo maalin kasta fatahaada aan jirin oo kala ka dhaca mararka qaarkood kuleyl aad u daran mararka qaarkood abaaro hadda waqtiyo badan abaar ka soo baxnay eegada waqtigii roobka markuu dhamaado waqtigii roobka lagu jirana fatahaad aan la arki jirin imaanaysa waqtigii kuleylka ama yani jawiga caadiga la geli jirana qorax aad u kulul ama sahuur aan arki jirin baa hadda ka jira wadankii runtii waxa waaye dhibaato weyn oo ku soo gaaray sababtoo waxaan arkaynaa hadda waa yeelaa marka magaaladan ku nool ayaa halis waxay ugu jiraan in oxygen la'aan u dhintaan laano waxay noqotay inay maadaama kuleelka markuu bato in guriyada mukayfiyo loo geliyo taasoo dhaqaalahood xataa iska bixin karin marka laga hadlaayo ay ka fiican tahay hawada kale aan haysan marka waa inay dhir badan aan beernaa si aan deegaankii nolosheena iyo caafimaadkeenaba u badbaadino Soomaaliya cimilada isbedelkan socdo beryahaani saameyn weyn ay ku leedahay mana aha meesha ay isbedelka maxaan ku rahay cimilada ay ka bilaabatay dadka ayaga u nugul oo ay maxaan ku rahday soo gaareen isbedelka cimilada sida roobabka daadadka kuleelka badan iyo dabeelaha isdaba guurka ah ayaa Soomaaliya saameynayo oo waxna dhib iyo u keenayo maxaan ku rahday dhibaato badan digniino badan laga dhiibaa oo early warning ayaa badanaa ka shaqeynaa